war ka soo baxay midowga Yurub, midowga Afrika, jaamacadda Carabta, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska iyo Mareykanka ay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay Soomaaliya. madaxda dawladdu waxay u soo jeediyeen inay dhowraan shuruucda dalka u taal, sidoo kalena ay ka shaqeeyaan xasilooni siyaasadeed uu dalka ku sii jiro si aan loo kala dhantaalin horumarka hadda ka jira Soomaaliya. si gaar ah waxay ugu baaqeen hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta inaysan u horseedin isqabqabsigooda, fowdo iyo kala dambeyn la'aan dalka uu galo. beesha caalamka ayaa ku baaqday in xal siyaasadeed la kala dhex dhigo labadan hay-adood ee fulinta iyo xeer dejinta oo ka mid ah tirarka ugu waaweyn ee dowladda. waxaana warkun ka soo baxay lagu sheegay beesha caalamka inay maqlaan kulamada iska soo horjeeda ay yeelanayaan xubnaha mooshinka wada iyo kuwa ka soo horjeeda, wax walbana lagu xalliyo sharciga oo loo hoggaansamo. ugu dambeyn waxay sheegeen inay soo dhoweynayaan cid waliba oo u istaagta daminta xiisadaha siyaasadeed una saldhigta nidaamka iyo kala dambeynta Soomaaliya. walaaca beesha caalamka ayaa imanaya xilli guuxa magaalada uu yahay mooshinka ka dhanka ah gudoomiye Jawaari. ciidamada hay'adda fulinta ay geysay xarunta baarlamaanka iyo isbeddelka